barnaamijka dhalinyarada maanta. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee samiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. waa maalin axad ah labada bisha February sanadka 2020 Afrikada bari saacada waxay hadda tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 5:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadeena duhurnimo waxaa kamid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo aynu ku eegi doono dhalinyaro soo kordhiyay halabuuro dhanka tiknoolajiyada ah. waxaan soo kordhinay telefono free oo local free oo la yiraahdo Panasonic PBX. waxaan ka hirgelinay xarun ganacsi ama isbitaal oo la yiraahdo Al Hospital oo ku yaala magaalada Boorama. waxyaabahan ajadaha noogu jira aanan hadda weli aanan gaarin waxa kamid ah in aan mobile apps-ki aan ku qalabayno dhammaan website-ada wadanka ka jira. heesaha aan idin haynana waxaa kamid ah ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Axmed Cabdi Kaariye oo loo yaqaan Qoorqoor ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada maamul goboleedka Galmudug ee maanta ka dhacday magaalada Dhuusamareeb. doorashadan oo muran badan hareeyay isla markaana ay qaadaceen inta badan musharaxiintii ka qayb galaysay ayuu Qoorqoor kaga guuleystay 4 musharax oo la tartantay isaga oo helay codad dhan 66 cod. Axmed Qoorqoor ayaa soo noqday wasiir dowlaha wasaaradda howlaha guud ee dowladda Soomaaliya isaga oo la sheegay in uu haystay taageerada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. kooxda Ahlus Sunna oo diidan habka ay dowladdu u waday maamul u sameynta Galmudug ayaa Khamiistii la soo dhaafay magaalada kaga dhawaaqday madaxweyne ay sheegeen inuu Galmudug hogaamin doono muddo 4 sano ah. dhanka kale Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa ku adkeysanaya inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee Galmudug uuna dhameysan doono muddo xileedka hadda u harsan. Israa'iil ayaa qaaday duqeymo ay ka fulisay marinka Gaza saacadihii hore ee maanta oo Axad ah, waxayna militariga dalkaasi sheegeen in duqeymahaasi ay kaga jawaabayeen gantaalo ay Falastiiniyiintu ku soo tuureen koonfurta Israa'iil. diyaaradaha militariga iyo kuwa helicopterska ayaa beegsaday xarumo la tuhumayo inay leedahay kooxda Xamaas oo maamusha magaalada Gaza waxyarun kadib saqdi dhexe ee habeenkii xalay. lamana soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay duqeyntan ilaa markii uu qorshihiisa nabadda ee colaadda Falastiin iyo Israa'iil uu talaadada la soo dhaafay ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. gantaalaha duqeymaha iyo waliba buufinada loo adeegsado qaraxyada ayaa si maalinle ah looga soo tuurayay marinka Gaza kuwaasi oo beegsanayay koonfurta Israa'iil, waxayna dhaliyeen aargudasho ka imanaysa ciidamada Israa'iil sida ay ku waramayso wakaaladda wararka AFP. Falastiiniyiinta ayaa si weyn u diidan qorshaha nabadda ee Mareykanka kaasi oo ay ku sheegeen mid si xoog leh ugu xaglinaya Israa'iil. halka warkaasi aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA Washington. haatan ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa Boorama noogu soo diyaariyay Haashim Sheekh Cumar Good. kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaasheeda qiimaha badan oo ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA kaasoo maalin walba oo Axad ah aad ka dhageysataan idaacadda duhurnimo ee dhalinyarada maanta. wuxuuna toddobaadkan idinkaga imanayaa magaalada Boorama ee gobolka Awdal. waxaana idin soo diyaariyay anigoo Haashim Sheekh Cumar Good. barnaamijkeena hibada iyo halabuurka ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhalinyarada ka qalin jabisa jaamacadaha dalka gudihiisa iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyaan bulshada ee la xiriira halabuurkooda maskaxeed. waxaana inoogu martiyaa barnaamijkeena maanta Saciid Cismaan Cadare oo bartay aqoonta isgaarsiinta
kana baxay kulliyadda isgaarsiinta ee jaamacadda eelo sanadkii 2016 iyo xamse cumar cismaan oo isna bartay aqoonta computer science wuxuuna ka qalin jabiyey kulliyadda computer science ee jaamacadda eelo sanadkii 2017 kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal-abuurka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. waad mahadsantahay. waa mahadsantihiin aad iyo aad baan soo dhaweynaa VOA bahda VOA. haddii aan ku horeeyo injineer Siciid Cismaan Cadare bal waxaad sharaxaad naga siisaa waxyaabihii la yaabka lahaa ee aad hal abuurteen lana xiriiray aqoonta farsamo yaqaannimada isgaarsiinta isla markaana aad ku soo bandhigteen muddadii aad ku jirtay waxbarashada kulliyadda iyo intii ka dambeysayba. waad mahadsantahay. waxaan ahay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Yale University gaar ahaan faculty telecommunication engineering. waxaan ka baxay sida aad sheegtay sanadkii 2016 waxaan ahaa first bachelor degree qoladii ugu horeysay ee ka barata telecommunication engineering gobolka oo dhan. ayuu Yale ayaa jaamacadda ugu horeysay ee gobolka ka bilowda faculty-ga telecommunication. annaguna waxaan nasiib u helnay inaan noqono kuwii ugu horeeyay ee wax ka barta. sidaas ay tahay intii aan jaamacadda ku jirnay waxa jaamacadda la nagu baray sidii aan xirfadayada aan baranayno aan ugu shaqaysan lahayn. adanka lana barayay sidaan u samayn lahayn designka networking oo kale u dejin lahayn sidoo kale aan u suura gelin lahayn inaan samayno qalabis ama devices aan anagu isku keenay kuwaas oo suura gelinaya ama faa'iido leh in wax lagu qabsan karo dhinacay doonaan ha ahaadaan. intii aan waqtigaasi aan ku jirnay waxaan isku daynay inaan waxyaalo fara badan samayno. sidoo kale markaan jaamacadda dhiganay waxaan develop garaynay inaan dejino network kaasi on hal IP address intaan soo qaadanay IP address kaas waxaan u qaybinay gobolka oo dhan. afarka gobolka inta uu leeyahay oo degmo uu leeyahay magaalada Boorama gaar ahaan waxaan u qaybinay afarteeda degmo. sidoo kale mid guud baan samaynay oo 6 gobol ee Soomaaliland oo dhan hal IP address oo kale inaan example istoon soo qaadanay aan u qaybinay sidii u heli lahaayeen iyagoo xaafad iyo guri loo gelinayo oo maxaa loogu qaybinayo. taasi waan samaynay network waan samaynay waan dhamaystirnay maxaan dhahday si fiican ayaan uga shaqaysiinay. sidoo kale markii final project-kii aan samaynay guriyada waxyaaladii aan samaynay waxa kamid ah inaan samayno antenna. taasi antennada si oo iyadoo ahayd mid aan anagu gacmaha ku samaynay iyadoo aan soo qaadanay waxay ka koobnaysaa iron wire iron oo kale mental iron ma soo qaadanay waxaan soo qaadanay transformers ma soo qaadanay sidoo kale resistance iyo iodis waxaan soo qaadanay iodis ma soo qaadanay dhammaantood intaan isku wada xidhnay cohesion cables iyo ma soo qaadanay waxaan soo qaadanay wired shabago kale ayaan isagana soo qaadanay dhammaantii intaan isku wada xidhnay waxaan ka soo saarnay antenna aad u shaqeynaysa taasi oo ku suura gelinaysa dhanka mobilka maaha laakiin waxay ku suura gelinaysaa inay ku soo qabato channelska TV-ga adigoo cohesion cable-keega intaad u isticmaashaba TV-ga gelinaysa xadhigayga waad ag dhigaysay dabeetana waxay lahayd button off iyo on bay lahayd waad shidaysay waxay ku soo qabanaysay inaad channelska TV-ga satellite-ka ku jiray inay ku soo qabtaan TV-ga inaad live uga daawan karto. sidoo kale waxaan samaynay waxa kamid ah networking intaan samaynay device-kaasi oo isagoo ku suura gelinaysa inaad telefooniskaaga buildingska maxaa security-ga si loogu ilaaliyo in qofku markuu soo galayo albaabka buildingka uu soo gaaro inuu telefoonkaasi uu ka go'i karo oo si automatic ah isaga go'o. marka area-da shirkadu ay ka shaqeynayso telefoonkii mobilka ee gacanta kama shaqeynayaan kama shaqeynayo waxa ka shaqeynaya ma jirto qofka albaabka qofka ay soo gaaro toosali telefoonkiisa wax ku soo qoraya kuma jiro simka wax simka surface kuma jiro telefoonka antennadu way ka baxaysaa. marka waa laga shaqeyn karaa area-da xafiisyada dawladda xafiisyada shirkadaha xafiisyada kale ganacsiga dhammaan waa loo isticmaali karaa in aan area-daasi aanu telefoon aanu ka dhici karin. waa loo isticmaali karaa dhammaantood waa loo isticmaali karaa gaar ahaan waxaa aad loogu isticmaalaa masaajidada ayaa imika kale aad loogu isticmaalaa waayo masaajidada marka soo lagu jiro waxa dhacayna dee telefoonka kusoo dhacaan oo dadka ay ku dhaliyaan interference ay ku dhaliyaan taasi waxay suura gelisay in telefoonada masaajidada loo isticmaalo maxaadarooyinka kale waqtiyada lagu qabanayo ayaa loo isticmaalaa masaajidada inta badan loo isticmaalaa. sidoo kale imika waxaan ku tali jirnaa inaan develop garayno meel company aan samayno taasi oo software-iska mobiliska lagu shubayo aan iyadana inaan soo dejino aan doonayno mobilada installation-kooda software-iska sida dadka mobilada markay ka baxaan oo kale inaan ugu shubno aan iyadana samaynayno ku tali jirno. dhinaca bayteriyada oo ay dhib badan ka haysato dadka reer miyiga ee aan haysan charge ama aan charge karin telefoonadooda gacanta iyaga waxaad
samayseen ama aad hal abuurteen ma jiraan? way jiraan. waxaan samaynay charge ma samaynay charge-gaasi oo isagu kuu suura gelinaya inaad telefoonkaaga isaga charge garaysan karto adigoo unan maxaa dhahday aanad soo iibsan charge kale si toos ayaan u develop garaynay una shaqeeyay una kuu buuxinay una kuu charge garaynay telefoonkaaga. waxaad ka samayseen markaa charge-ga cusub ee aad ugu tala gasheen in mobilada lagu charge garayso isagoo aan isticmaalin electric? waxaan ka samaynay xadhkiima horta soo qaadnay electric uu isticmaalaya laakiin electric uu kuu kaydinaya uu isticmaalaya marka uu kuu kaydinaya xadhkaha iyo transformers waxaan soo qaadnay in dabkooga waqtiga loogu talagalay ay kuu kaydiyaan telefoonka markaad gelisana uu kuu charge garaynayo laakiin electric uu isticmaalaya uu kuu kaydinaya. wax qoraxda oo kale lagu isticmaalo oo qofku qoraxda ka charge garaysan karo ma samayseen iyadoo ku talagalay development inaan samayno rajaynayna. haddana wareego dhinaca Xamse Cumar Cismaan oo kulliyadda computer science ka baxay ee jaamacadda Eelo 2017 Xamse waxyaabaha markii aad halkan jaamacaddan Eelo aad ka baratay aqoonta computerka waxyaabaha aad soo kordhisay ee aad ku soo kordhisay bulshada maxaa ka mid ah? waa mahadsan tahay bahda VOA iyo barnaamijka Hal Abuur. waxyaabahan soo kordhiyaan magacaygu waa Xamse Cumar Cismaan waxaan ka baxay kulliyadda computer science jaamacadda Eelo 2017 intii aan ku dhex jirnay jaamacadda xilligii waxbarasho sanadii saddexaad jaamacadda ayaa waxaan aasaasay shirkad la yiraahdo Himila Software Solution oo ajendaha iyo visionka shirkaddu ahaa in dadkeena loo dhamaystiro baahida adeegyada IT-ga. waxyaabahan soo kordhinay waxaa kamid ah waxaan keenay qalab aanan horay looga isticmaali jirin wadanka oo kamid yihiin